hay-adda difaaca xuquuqul aadanaha Puntland oo ka dawlasa kiisaska ka dhanka ah tacadiyada lagula kaco haweenka oo ayadan soo badanayay ayaa dood ku saabsan xuquuqda haweenka gaar ahaan kufsiga iyo gudniinka waxa ay ku qabatay 6 degmo kuwaasi oo kala ah degmada Boocame, Xarfo, Dagoro, Waaciya, Carbo iyo Baran iyadoona taageero ka helaysa hay-adda Diyakooniya. degmada Carbo oo ka tirsan gobolka Bari ayaa dadka ku nool waxa hay-adda xuquuqda aadanaha Puntland ay u qabatay dood taasi oo diiradda lagu saaray sida looga hortagi karo tacadiyada haweenka lagula kaco. waxaa halkan hortiina idinka muuqda 3 buug oo kala ah buugga xeerka kufsiga oo ay soo saartay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka. waxaa kaleeto oo isna halkan ka muuqda siyaasadda joojinta gudniinka gabdhaha iyadoo ay soo saartay wasaaradda haweenka dawladda Puntland. dhammaanba waxaa loogu talagalay siyaasadahaas. waxaa kaloo isna ku jira buugga loo yaqaano CRC baa la yiraahdaa ama waxa weeye waa axdiga ay ku qoranta xuquuqda carruurta oo caalamka dawladda Soomaaliya ay qayb ka tahay oo la saxay 2015 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhammaan qodobadii diinta islaamka hor imaanay waa laga saaray. sidaa darteed waxaa la waafajiyay dastuurka iyo diinta inuu dad islaam nahay wax kasta oo aan isticmaalayno waa inay la jaan qaadaan diinta islaamka iyo dastuurkeena waa inay ku fadhiyaan. marka sidaas loo soo turxaan bixiyay 3 buug baan wadnaa. waxaana loogu talagalay wacyigelin bulshadu inay laga wacyigeliyo kufsiga iyo gudniinka fircooniga iyo sidoo kale carruurtan xuquuqdooda la ilaaliyo. dhammaan marka xafiisku xuquuqda aadanaha ayuu waxa weeye ka shaqeeyaa. waxaa shaqadiisu tahay in presentation la soo bandhigi doonaa ku arki doonaa laakiin ujeedka guud ee shirku hadda intaas uu ahaa. laakiin waxaan dheerahay baa jira caalamka oo ah Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayo arrimaha habku u cabiray iyo culimadii islaamka meeshay gaarsiisay iyo saan uga maranahay laba isdaboolaysa ma saadaradeed in dunidu marka ay wax dejiso oo dalalka muslimiinta ku dabaqdo oo u keento iyagii marka wax la baro marka waa la walba shilalka isdegtaal ugu qala annaga ay ahayd dunida inaan wax ka bedelo oo annagu aan xuquuqda insaanka baro oo aan waraysaa dhawrista haweenka baro gabdhaha inaan la kufsan barno aan barno ma garanaysaa carruurta in la dhaqaaleeyo barno gabdhaha waxa weey in lagu xadgudubno si xun loo isticmaalay gudniinkooda loo isticmaal aan baro annaga ahayd oo ciidad wax fulinaysa dunida wax dejisa annaga ahayd. laakiin maanta inaga loo dejiyay wixii fiican waa ka qaadanayna sharciyeedna waafaqsan laakiin hadda waxaan rabaa inaan idinka wacyigeliyo oo qaybtayda aan qaato wacyigelinta isu arka laftigiinu inaad tihiin dad wax lagu tuhmayo laakiin aan waxoodii arag ama ka ooman. magacaygu waxa la yiraahdaa Ciid Ismaaciil Ibraahim waxaana ka socda odayaasha degmada Carmo. arinta ah maxaa hortaagan guditaanka waxaa hortaagan wacyigelin la'aan. waxaa kaloo hortaagan dad hore u soo shaqayn jiray oo awalkii hore soo shaqayn jiray oo gudniinkii fircooniga ka shaqayn jiray hore mulso dhaqameedkii ayaa waxaa u baahan yahay in aad loo wacyigeliyo systemkiina laga bedelo loo yiraahdona maaragtay sunnaha gabdhaha lagu gudo. waxaan ka socdaa xaafadda daruuraha. anigu waxaan leeyahay arintaa waxaa hortaagan dadkoo aan wada ayidsanayn oo mataqaanaa aan wacyigelin badan aan lahayn sida mataqaanaa dadka waayeelka ama xaafadaha ama maxaan ku sheegayaa dhalinyarada qaarkeed isku duubni la'aan baa jidha iyo wacyigelin badan oo aan jirin. marka anigu saas baan ka dhimanaya xogtayda. waxaan ka socdaa arrimaha bulshada. waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. dhibaatada gudniinka fircooniga markaan ka hadlo kuma baraarugsana inta badan dadka muslimiinta ah inay ku baraarugsan yihiin diintooda. qodobkan gudniinka fircooniga ah wuxuu ka soo jeedaa nin gaal ah oo fircoon la yiraahdo oo asal ahaan ujeedadiisu ay ahayd in
dareenka uu ka baabi'iyo dumarka oo sida orgida marka la dhufaanayo kale laga dhigo raggiina uu laayay waana qodob xun oo sharciya diintana aan ku wanaagsanayn oo aan qodob ku jira ahayn dhaqan ahaanna aan u fiicnayn jir ahaanna aan u fiicnayn dhibaato badan iyo dhimasho badanba laga dhaxlay marka waxaan leeyahay qodobkaas in si aad looga wacyigeliyo bulshada lagana joojiyo dumarka waa qodob aad dhibaato ugu haya su'aasha labaad waxay dhahaysaa maxaa sharciga loo horkeeni waayay dadka gabdhaha guda sharciga maxaa loo horkeeni waayay oo maxkamad loola tigsan waayay dadka gabdhaha guda oo jarjara haye laga jawaabo tan insha Allah waay najma magacayga waa najma horta maamooyin baa jira horta wax guda oo mulsa dhaqmeed ah marka maxaa maxkamadda loo geen waayay ayagaaba shaqadooda tahay lacag ka qaadayay ma ayaga la shaqaysiiyey marka hore dabcan haddii shaqo la siin lahaa way iska dayn lahaayeen laakiin dadku dhan way og yihiin in shaqadoodu tahay gudniinka fircooniga ah degmada Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudug waxay hay'adda xuquuqda aadanaha Puntland ku qabatay kulan looga doodayo dhibaatada kufsiga iyo gudniinka gabdhaha iyo sidii looga hortagi lahaa iyadoo bulshada qaybihiisa kala duwan looga jawaabay su'aalihii ay qabeen anaga ujeedkayga hadda maanta halkaan aan u soconay wuxuu ahaa xuquuqda aadanaha guud ahaan ka sokow laba mowduuc oo boorka ka aragtaan oo ah tacadiga ka dhanka haweenka iyo sidoo kaleeto gudniinka gabdhaha labadaas baa hadda socodkay waxaan meesha u nimi shirkan waa shir weeye tababar ma ahan laakiin waa shir lagu gorfeynayo arrimaha khuseeya labada mowduuc human rights Xarfo muddo badan bay ka shaqeynaysay xafiis bay ku leedahay waan wada shaqeynaa tababarkan ma aha tababarro kale aan isugu nimi ujeedka iyo hadafka u yimaadaana waa buugtan bay ku qoran tahay oo waa in si dadka xuquuqdiisa la ilaaliyo dadka inaan lagu tacaadin dadka inaan la caburinin gabdhaha inaan la kufsan waxbarashada in laga hor istaagin wiilasha laftigooda inaan la caburinin waxa ilaalisa xuquuqda aadanaha magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdinuur guuleed ka socda dugsiga sare degmada Xarfo Suudaar Secondary School bulshadu ma wada fahansana ma wada gaarisana marka qodobka koowaad hadaan soo qaato waxaan oran karaa waxaan jirin awareness ku baasan bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhulka miyiga iyo tuulooyinka gobolka iyo deegaanada Puntland ee kala duwan odayaasha ka mid ah degmada Xarfo ahna xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan Coomba Baraacal Dhawad Baleera waxaan wada ogsoonahay in meeshan iyo markii la soo umay gabdhaha fircoon loo gudayay marka in la bedelo waxaan qabaa inaysan ahayn arrin markiiba fudud waxay u baahan tahay wacyigelin dheer tababaro muxuu ahaa istaakilin in laga shaqeeyo in dadka la gaarsiiyo meelaha kala gudsan oo ay joogaan miyiga iyo magaaladaba waqti badan bay u baahnaamaysaa horta diinta islaamku wixii ay diidan tahay aysan qabin marmarsiin lagama dhigan karo fircoonigana waa jarjarid iyo xadgudubna diinta islaamka ka soo horjeeda marka marmarsiin kama dhigan karno waxaan diintu iyada maslaxad waxa ay ku jirto iyada taqaana naga badisa diintu oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo nabigii soo diray iyo ina ka badiya sallallahu alayhi wasallam waxa ay ku jirto faa'iidadu marka lama dhahan waa xaraan hadii gabdhaha faa'iido ugu jiri lahayd taa marka intaasan leeyahay magacaygu waa Xaliimo Miro Faarax waxaan ahay xubin ka mid ah golaha deegaanka degmada Xarfo waxa maxkamad loo soo saari waayay sida raggu wuxuu aaminsan yahay oo ay raggu aaminsan yihiin in ay saxan yihiin ragguna waxa ay rabaan markaan runta idin kala hadlo waan arinta laga laalaabanayn raggu waxa ay rabaan oo ay raali ka yihiin oo ku qanacsan yihiin gudniinka fircooniga waxay rabaan gabadha sajal in looga dhigo sidaas in laga dhigo waxay aaminsan yihiin sida ay kuwa hadlayaan qaarkood ama se inta aamusan ay la aamusan tahay ama se ay qabaanba gabadhu hadii sidii ilaahay ugu talagalay qofkan bini'aadamka ilaahay baa abuurtay xubnaha tarka ilaahay baa ku sameeyay waxa la jarayaa xubinteedii taranka oo la jarjaraya oo la dhaawacaya oo dib ku soo gaaraya gabadha Soomaaliyeed markay 35 sano gaadho ayuu 40 sano gaarin bay dhalmadaysaa waxa koos gareeyay inay dhalmadayso xubnaheeda taranka maqan
waxaa kaleeto oo jira marka ay dhaqmayso oo joogto gurigeeda oo ninkeeda la dhaqmayso dee ma dareenba ma laha waa shakhsi macnaha lagu adeeganayo ma aha macnaha shakhsi ayadu farxad iyo himad iyo niyad haysa midna meesha ku imaanaysa ma aha marka hore waxa laga yaabaa inay isleedayaan gablamin sida nimagaas dadkaas oo kaleeto awlaad raadso macnaha hami iyo niyad iyo farxad haysato midna ninka kuma doonato marka kaleetana ayadoo 35 bagaarin ama 40 gaarin bay dhalmada inaysa waa xubnaha taranka maqan waxaan la soo kulmay dhibaatooyinka aad macnaha kulligiin ka wada dirigsantiin oo ka wada warqabtaan haday dhig bax tahay haday dhimasho tahay haday isugo tahay haday fool tahay haday dhig macnaha ku dhaco ku xirma tahay haday igfishin tahay sidix kasta oo soo gaaray gabdhaha soo gaarayaan wixii caqabada gabdhaha ka gudbin lahaa oo masuulka ka ahaa oo ilaahay macnaha masuuliyadda u saaray waa ragga wacyigelinta macnaha dawladda iyo hay'adaha xuquuqul-insaanka waxa ka ina oo kaga leh culimada oo diinka odayaasha dhaqanka aabaha guriga jooga yaa dhaqankan ayaga suulin kara culimadu inay si in badan ka hadasho inay dadka wacyigeliso ilaahay diinta wuxuu u soo dejiyay waxa xunna in laga leexdo waxa wanaagsan lagu raaco xamdi cabdirasaaq axmed boqolkiiba boqol xarfo aad bay hadda ugu yeedhahay midda inta hadda hay'adu kala go'day kala wareegtay baa macnaha dareeminaa dad dhaqankii dib ugu soo noqday dhaqanka xoojin buu rabaa wacdigelin buu rabaa qofka hooyada ee dumarkii iyadoo raali kama aha ilmihii mas'uul kama ahan odagii baa ka ah odag wuxuu ku leeyahay sidii la iigu gudi jiray gabadhayda iigu gud rag wuxuu u baahan yahay seminaarka xoog aad iyo aad in loo saaro loogu qabto de hooyadii aabu waa isqabanayaaye si fiican odayaashii loo qanciyo loogu qabto hay'adda xoogga xagga dumarka ragga ay u saadho degmada Boocaba oo ka tirsan gobolka Sool waxay hay'adda xuquuqul aadanaha Puntland isugu yeertay haldoorka degmadaasi iyadoo nasiibka shacabka uga hadashay dhibaatada iyo sidii looga hortagi lahaa tacdiyada lagula kaco haweenka Puntland intuu ay la tagay kufsaday in isagii abaalgud looga dhigo la siiyo waa xaraan wey waaba dambiile talabaad waa in meelaha sida ciidamada biliiska meelaha xoriyaha ciidamada waxaas oo dhan la tagaa wacyigelin loo sameeyaa la yiraahdaa kufsiga had iyo goor waxay ka yimaadaan meelaha raggu ku badan yahay kufsigu ama meelaha la isugu soo guuro deegaanada la isugu soo guuro oo roobkii meelaha marka roobku daan la isugu guuro buu ka dhacaa waxyaalaha la yaab kufsigu marka iyada laftigeeda odayaasha dhaqanka dadka waaweyn simada waxgaradka waa in ay dadka ka wacyigeliyaan kufsiga lagana soo saaraa ciqaabo oo qofka wax kufsada la hor keenaa sharciyada haddii sharciyada qofka la hor keeno ama qof ama bal lagu fuliyo xitaa qaar bad sharcigu sheegaya in la dilo waayo qofka soo mara guur halaala waa dil bu sheegaya haddii waxyaalaha noocaas mar la fuliyo ama la fuliyo waa yaraanaya marka waa in sharciyada la hor keenaa qofka aan la qarsan oo laba beelood ka wada hadlin oo dabeedna aan xawashi xal lagu dhamayn ee la hor keenaa sharciyada haddii la hor keeno wuxuu waa yaraanaya waayo dadku sharciga waa ka baqaa marka aan waxaan soo jeedin lahaa in qofkana sharciyada la hor keeno gudniinka fircoonigana la sameeyo wacyigelin fara badan oo tulooyinka meelaha ay khusaysa kufsigu wax dhibaato ah oo dalka ku jira laba qodob baan dadku laba qodob bay wax ku kufsadaan nin soo muudo oo ka soo kaca gobolka Karkaar oo kale oo dhulka gabdhaha ku kufsada oo iska taga iyo nin uba dhashado oo edabtarada isaga dhashay labadaas isaga ugu qaybsan marka waxa loo yareyn karaa deegaan kasta dadka wax kufsada waa dad la yaqaan oo edabtaran oo gaar oo in hebel loo yaqaan ee dadkoo dhan kuma kaco anu hadeer inteena hadeer halka fadhiyo waa wada garanaya nin gabar kufsaday ragga kuma jiro laakiin dadka gabdhaha kufsada waa la yaqaan weyna hebel nin walba uu yaqaan hal la soo qabto hadii gabar la kufsado kii wax kufsan jiray waa la yaqaan hal la soo qabto dadkoo dhan kufsan maaye deegaanka Karkaar saaha loo galo ka Boocama saaha loo galo gobolka saaha loo galo markii gabar la kufsado in hebel la soo qabto saasa loo yareyn karaa hal loo horkeeno waa sharciga dadka gabdhaha gudaha
waxaan filayaa marka qodob la sameeyo horta waxa ka horeysa qofka dhibtu gaartay ee gabadha ah inay iyadu informationkeeda geysan karto oo oran karto dhibkaas la geystay qofkaasana ay geystay marka ayaa waxa soo bixi kara loo sameyn kara oo gudbi karta oo wasaaradda tagi karta oo arrinkan gudbi kara oo la oran kara war arrinkan qodob ha loo sameeyo oo macnaha lagu daro shuruucda ha lagu daro dalka u yaala saasaan filayaa wax information ma jiraan oo cid geysaa ma jiro oo gabar geysaa ma jiro oo dhibtaas la geystay waxaan filayaa inaan jirin ala dacwadaas inaan tagi boomalayna tamaasantii degmada Waaciyo gobolka Karkaar sidoo kale waxa shacabka ku nool magaaladaasi ay ka doodeen dhibaatooyinka kufsiga iyo gudniinka la soo gudboonaada haweenka Puntland socodka hadda aan soconayna wuxuu ahaa sida boorka wadinka muuqata golof furan oo kordogteynta difaaca xuquuqda aadanaha tacadiyada ka dhanka gudniinka gabdhaha haweenka tacadiyada ka dhanka haweenka iyo gudniinka gabdhaha marka degmooyinkaas xarfo iyo boocama iyo dangorayo iyo sidoo kale Waaciyo Carmo iyo Baran lixda degmo ayaa loogu talagalay in barnaamijkan forumkan laga qabto ama golahan dowladda lagu faafeeyo waxaan qabaa in la yareeyo dambiyadoo dhan hadday yihiin kuwa dumarka laga galayo iyo haddii ay yihiin kuwa ragga laga galayo waxaan dowladda Puntland kula talinayaa oo ayadu xukuumadda dalka u sarreysa ah in ay wax ka qabato dambiilayaasha dambiga gelaya maxkamadna ay saadho aan lagu cafinin si dadka kale ay ugu quusaan oo aysan maaragtay dambi u gelinin xadgudub nooc doona ahaade Muuse Maxamed Qalinle waxa lagu saari karaa in la sameeyo markaasi meelo fara badan oo xarumo loo sameeyo dadka lagu wacyigelintana aad loo badiyo maahantii haddii la awoodo in loo furo meelo markaasi lagu baro dadka gudniinka fircooniga wax jira inuu ahayn inuu dadka dhibaato ku haya haweenka in loo sheego sidoo kale waxa weeyaan qofku inuu diinta bartaayna waa wax ka joojin karo weeyaan waxaasi oo dhan waxaan kufsiga hadii la eego kale runaantii waxa weeyaan zinada quraanku ka hadlayo wala taqrabu zina abu leeyahay kufsiguna markaasi waaba sinadii oo la sii xoogay haddii aan ka hadlo labada qaybood oo laga hadlay labadaba dee waa laga hadlay oo waxa weeye haddii lagu dhaqmayo waxaan laba qodob weeye labada qodob oo gabdhaha macnaha tala bixintoodu waa wax muuqda laba eray kaliya weeye oo erayna waa dhaqan la bartay oo la iska daba joogo la iska higsanayo dhaqanna waxana waa qodobna waa qodob hooyadii gabadha dhashay ay leedahay oo hooyadii iga horeysay sidaan bay gabadha ku sameyn jirtay maanaha gabadhayda macnaha bedelhaya waana la sheegay oo dee wax fircooniyo wax la raaca maahan badanaaba hadda waxa weeye magaaladan aan joogno in badan waa laga wacdigeliyay hooyooyinku badanaaba waa ka warqabaan aniga iyo wixii la midaba waxaan aaminsan lahaa waxaas inay khalad yihiin dadka geeyiga Puntland ku nool waxa laalay wixii gabadh fal xuquuqda aadanaha ka dhanahna uu ka hortago oo cid allaalay cid cabasho qabtana uu qareemo cabashadoodana waxa weeye wax ka qabto inta ka bacdi anaga ujeedkayga hadda maanta halkaan aan u soconay wuxuu ahaa xuquuqda aadanaha guud ahaan ka sokow laba mowduuc oo boorka ka aragtaan oo ah tacadiga ka dhanka haweenka iyo sidoo kaleeto gudniinka gabdhaha labadaas baa hadda socodkaygu waxaan meesha u nimi shirkan waa shir weeye tababar ma ahan laakiin waa shir lagu gorfeynayo arrimaha khuseeya labada mowduuc sidoo kale buugaagta hadda hortiina ku haysan ayaa waxa weeye iyadana kamid ahayd ujeedka aan idin qaybinay sida buugga xeerka kufsiga iyo sidoo kale buugga siyaasadda ka dhanka gudniinka gabdhaha iyo sidoo kale buugga xuquuqda carruurta waxa weeye oo isaguna halkan yaala saddexda buug ayuu ah socodkaygu iyo sidoo kaleeto su'aalo inaan iska weydiino waxyaabaha caqabadaha iyo la xiriira kiisaska tacadiyada ka dhanka haweenka iyo sidoo kaleeto gudniinka oo isna noqday tacadi kamid ah tacadiyada ku dhaca dumarka labada mowduuc buu ahaa ujeedkaygu iyo socodkaygu horta marka waxa la keeno dadku inay macnaha qofba qof ku riixo la isdacweeyo meesha kuma jiro waxaan dareensanahay hadda gabdhuhu waxay yiraahdeen odayaasha ma garanaysaa arrinta baa mas'uuliyadda hayo oo iyaga hortaagan in arrintan dhaqan gasho arrinku sidaa ma aha markaan gadaal markii hore arrintii hore markaan ku noqdo
arrintan waxaa hogaaminaysa jahli dadka waxa weeye ku raagay oo muddo badan dadku waxa weeye oo ku soo dhaqmayay baa in arrintaanu dabar go'do oo waxa weeye ay dhaqan gasho diidan hooyana ma diidana aabbana ma diidana islaanta caruurta dhashayna ma diidana cid diidan ma jiro maxaa yeelay waxa weeye dadku markuu islaam yahay oo dad islaam yahay islaamku isagaa xuquuqda ilaaliya wax xuquuqda ilaaliya islaamkaa jira xadgudub buusan ogolayn qof in lagu xadgudubsan ogolayn sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo noloshiisa iyo jiritaankiisa in lagu xadgudbo islaamku ma ogolo axmed ka socda macadka ama dugsiga soo dhexe alfurqaan aakhiro waa la weydiinaya culimadu waxay waafaqsan yihiin gabadha fircoon loo gubay islaanta gudday aakhiro kontiga waa la weydiinaya amaam allah la weydiinaya lowna maxaa yeelay qof islaan la qalay oo mustaqbalkiisa lagu ciyaaro arrintan marka arrin sax ma arrintan marka waxa lagu soo kara waalidiinta ilaa wacdi galay ilaahay uga baqaa subxaan ilmaha ay dilayaan gabadha iyo hooyada iyo aabba mas'uulba ka yihiin oo nabi sallallahu alayhi kullukum raaci wa kullukum mas'uul an ra'iyati kama qala isla dhamaantii mas'uul baatiin qofka soo waa la weydiinaya aakhiro wax mas'uul ka yahay gabadha adaa mas'uul ka adeer wuxuu yiri habarta waxa uu luq la gashay habarta adaa mas'uul ka waxa la rabaa marka habartii in laga ogaado gabdhaha is luq la gelin adaa mas'uul ka ina gabdhaha ogaatay gabdhahan la qalay arrin sax ma ahan arrinta waxa loo baahan yahay in ilaahay lagu cabsado oo sharciga lagu dabaqo oo dadka ahkaam sharciga bartaan lagu ogaa karaa odaguna mas'uuliyad muujiyo aakhiro waa la weydiinayaa wuxuu mas'uul ka yahay gabadhan arrinta waxa lagu sameeyaa arrin sax ma ahan waa waxa aakhiro la weydiinayo dhiigeeda iyo qalinkeeda waa waxa waalidiin islaamku waa nasteexo waa fudeed ma ahan qofka islaamka in la qalo hadhow dhibaato ku timaado wax sax ma ahan marka waxa leenahay waxa lagu jisi karaa kitaabka ilaahay oo la qaatay dariiqa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ummadana lagu nabadgeliyo dadka mas'uulka hooyada iyo aabbaha mas'uulka inay gabadhooda mas'uul ka noqdaan oo waxaan ay ka daayaan baa lagu jisi karaa ciddi mas'uulka marka ah oo maamulka iyo dhamaantoodna waxay gelintaa ciddi qaabilsan in marka hore waalidka maartay la wacdi geliyo ilaahay laga baqo ilaahay rasuulka amarkiisa la qaato gabdhaha sunnadana oo ani macsaa loo qaato arrinta fircoogana oo gaalnimada oo dhibaatada oo shidada in laga joogo aad bay fiican tahay waxa weeye ujeedkaan u soconayna wuxuu ahaa shir gole furan oo ku saabsan xuquuqda haweenka gaar ahaan kufsiga iyo gudidda gabdhaha gudniinka fircooniga aan dhehe ujeedkaygu wuxuu ahaa labadaas dhammaan sidaan wada ogsoonnahay xafiiska waxaa loo xukumay ama loo sameeyey inuu ilaaliyo xuquuqda dadweynaha ku nool Puntland ciday rabaan ha ahaadeen ama dad Soomaaliyeed ha ahaadeen ama ummadaha kale oo la nool Puntland ku nool ha ahaadeen labadaba ayaa loogu talagalay inuu ilaaliyo xuquuqdooda iyo dadqabkooda waxa laalay wixii dacadi ku aan uu ka hortago taasi waa ujeedooyinka hadhowna PlayStation ku arki doonaayo waxa weeye waxaan ku ogaan doonaa wixii loo sameeyay PlayStation la soo bandhigi doono ujeedku marka hadda ugu weyn wuxuu ahaa labadaas shay taadiga ka dhanka dumarka gaar ahaan kufsiga iyo gudniinka fircooniga runtiina waa arrin muhiim ah in laga wada hadlo lana dhaqan geliyo xuquuqda bini aadamka guud ahaan gaar ahaanna haweenka oo ah runtii qayb ka mid ah bulshada oo haddana u nugul waxyaabo badan haweenku waa lafdhabarta bulshada waa qaybteenu ku muhiimsan haddana way nugul yihiin sababta had iyo jeer loogu celceliyana oo yani xuquuqdooda iyo dhowridooda iyo ilaalintoodaba waxa weeyaan waxay u nugul yihiin dhibaatooyin badan haddii meel colaadi ka dhacdo iyagaa ugu nugul haddii meel dhibaato ka dhacdo iyagaa ugu nugul haddii abaari dhacdo iyagaa ugu nugul haddii magaranaysa meel col soo galo iyagaa u nugul waa cidda la isla jiidayo oo iyaga inta badanna cidda dhibaatada geysata waxay u badan tahay raggay u badan tahay oo iyagu inta badan waxa laga yaabaa inaan dhibaatooyin waaweyn oo noocaas ama tacadiyo aanay geysan waxaan leenahay dhammaan inaynu ku wacyigashannahay qof kastaana meeshiisa ka ilaalinayo iyadoo bulshada Soomaaliyeed aan anigu aaminsanahay inay yihiin bulshooyinka ugu qadarinta badan xagga haweenka markay tahay muhiimadda aan meesha u nimana waxay ahayd xogtana inaan ogaano wixii dhacay
waxa hadda inuu yaalna aan ku gorfeyno oo kaga wada hadallo muhiimadda ugu weyn waa intaas marka presentationka hore waxa weeye markii laga yimaado waxaa jira su'aalahan halkan oo ku qoran ilaa 6 su'aalood bay ka kooban yihiin labaduba waxay khusayaan gudniinka gabdhaha iyo sidoo kale kufsiga labadaas mawduuc bay dul saaran yihiin marka tusaale ahaan haddaan u galo su'aasha koowaad waxay oranaysaa maxaa hortaagan in la dhaqan gasho siyaasadda ka dhanka gudida gabdhaha ee dawladda Puntland marka fikirku idin furan yahay waxaan ognahay siyaasad haddii la soo saaro iyo xeer haddii la soo saaro iyo haddii dastuur la qoray kulliba sida loogu talagalay inaysan u hirgelin marka asbaabaha keenay iyo caqabadaha jira kulliba waxaa muhiim ah in maaragtay aynu ka wada hadallo oo ra'yigan ah ku soo bandhigtaaneen waxa idinla muuqato qof kastana waxa uu ra'yigiisa xor buu yahay wuuna ka dhiiban karaa aragtidiisa marka su'aashaas hore saasayna dhahaysaa rag iyo dumar qofkii gacanta u taagan mikrofoonka u dhiibaynaa isagaa ka jawaabaya waxa weeye maaragtay wixii ula muuqato kaga jawaabaya su'aasha markaan isku dayo xoogaa waa laga aamusay waxaan qabaa barnaamijkaasi inuu horey u socon waayo ama suurtogeli waayo ama wax badan laga qaban waayo waxaa u sababa haweenka waa fikraddayda sababtoo ah marka la yidhaahdo gudniinka gabdhaha number 1 cidda uu hoos imanayo ama cidda biya kama dhacaanka ahi waxa weeye waa haweenka sababtu waxay ku tahay waxaa la gudayaa gabadha waxaa ka mas'uula hooya wadda oo geynaysa waxay u geynaysaa gabadh kale oo wax gudda barnaamijkii 90% wuxuu ku ururayaa haweenkii marka waxaan qabaa barnaamijka isaga hooyadii ama haweenkii ayaan u qaadan sidii loogu talagalay oo aan laabta u sii dayn hooyadii baa barnaamijka hore hoosta ka wada oo gabdhaha sahla ay u gudo anigu waxaan qabaa marka barnaamijka isaga waxaa soo afjari kara marka hooyadu daacad ka noqoto qaabka gabadha loo gudayo ayaan fikrada qabaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان فرعوني نية وجودة اللي جهد لي يبونا يراضي هداري وسيد فكر كيجا هو يراضي وحنا في عن تذكر وحجودة إن أي لازم أرنتن يجوا بدناران سيأيو أجادان قطب كان هلك كقرن إنه قبنا يجوا بقان markaa assalaamu calaykum gudniinka fircooniga in la joojiyo fircoon iyo arrimihiisa iyo beladiisa waxa in laga tago waxa weeyaan wax sax ah weey diiniyan bay sax tahay inagana waxaan dad islaam aan nahay laakiin gudniinka fircooniga oo diinta ogoshahay culimadu way joogaane oo diinta ogoshahay islaam ahaan inaga muslim ahaan inaga waxa weeyaan in la dabaqo weey marka gudniinka marka qaabka uu dhaqan geliyahay waxa weeye horta gudniinta uu jiraya oo gudniinka sunnaha ah oo inaga islaam ahaan baan ka hadlaynaa moogta uu jiraya laakiin waa ka diinta ogoshahay oo sunnaha ah oo islaam ahaan la ogol yahay inaan ka ku dhaqanno oo qaadano weeye fircoon iyo wixiisina aan turno baarlamaanka Puntland waxay ansixiyeen gabdhaha in la gudo laakiin gudista la sheegayo oo leeyahay waa fircoon inaan lagu gudin taasi ansixiyeen sanadka dambe baarlamaanka lagu soo macsuumay baarlamaanku waxay anagu laba qowl ma lihin mid baanu leenahay Puntland in gabdhaheeda la gudo baanu kal hore ansixinay maanta mid ka duwan oo aan keenaynahay ma jirto gudista horta halkaas inoo taallaa laakiin labada qodob markii loo kala qaado qodobka fircoon halka inaga dhiga asaga waa ka aan leeyahay haddii gabadha waxa lagu gudo wax salaada ku ansaxaysa ma jirto oo haddii ay wax noqoto qofkii waxa ku sameeyay qisaas buu yaa lagu leeyahay keenan kale sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam gabdhaha in dhiig laga keeno oo geedkan aynu naqaano farjiga dushiisa ku yaalla waxoogaa laga saro oo dhiigga laga keeno gabdhuhu waxay u tahay daway u tahay waxay u tahay oo kale ladada jimaacu markuu dhacayo rag iyo dumarku taasaa ladad badan oo wanaagsan
marka insha allahu taala waxaan kaga baxayaa gudis la-aanna meesha yaalla keeni gudista qaybina ay leedahay waa waajib islaamka qaybina uu leeyahay waa sunni kaasaa insha allahu tacaala meel inoo yaalla haddaynu nahay dadka islaamka nimanka gaala iyo waxay wataan innaga inama khusayso fircoonna inama khuseeyo oo waa ninka ilaahnimo sheegtay intaasaan kusoo gabagabay wax saasa oo dadka caruurta dhalay oo gabdhaha dhalay baa ka raadaya in la tolo oo la cadaabo islaamta in cadaabkaysa lacag ku siinayaan bay lacag ku siinayaan islaantiina cilmi uma lahayn say doontay u gelaysaa cadka ay wada goyso gabadha ay wada toltosho ciqaab baa halkaa ka xasilaya aakhiro iyo mid adduun labadaba sida culimmadu ka sheekaysana dee raggu hawsha iyada ah raggu shaqo badan kuma leh waxna lagama su'aalo xitaa gabadha goortii la gudaayo hooyadeedaa la su'aalaa la yidhaahda baan u malaynayaa inta loo yimaado lama yaraado gabadha sidaan u gudnaa wax laga yaabaa islaamtu inay tidhaahdaa inantii baan gudayaa idankii waa sii gudi lahayd idan waxay tii idan aabba weydiiye tee gabadha gud waxaan u maleeyaa intaasaa ragga ka khusaysa wax kaloo ka khusaya ma jiraan marka halkan su-aashu waxay ahayd maxaa hortaagan waagada lama gudbo maxaa hortaagan u fuli weydi waa sheegaynaa waxay hortaagan horta annagu marka ugu horraysa haddaanu raggan nahay waxaan u haysanay inay fishay waxaannu ku garanaynaa raggu waagii hore berigii hore gabdho qodban baa loo keeni jire waxay odhan jireen waa kala goy weye midgaanadadamaa loo gey jiray hadda ma jirto waxaan u haysanaa inay meesha ka baxday haddayse ka bixi weyday maxaa hortaagan waxaa hortaagan dumar ku shaqo qaata oo barofeshinkaa leh in laga jaro ama lagu xidho si aanay ugu noqon cidda hortaagan hooyo maaha oo shiikh maaha oo nin maaha waa iyaga dumarkaa ku shaqaysta oo gabdhaha loo dhiibo in iyaga taqsiir ama xarig lagula macaamilo say uga baydhaan halkaas anuu kale asalaamu calaykum